horta waa sax dadka aasaasay markii hore dad rumuus ah oo yani madax oo la yaqaanay ahaayeen saan ku sheegay ninkii la dilay ururka ninka hadda haysta ka horeeyay Axmed Cabdi Godane baa wuxuu ahaa nin ururka wuxuu u sameeyay yani category ama mustawiyaad buu kala sameystay qaar qolo la dhigi jiray fursaanul khilaafa jiray oo dhalinyaro ah oo aqoon-yahano u badan oo maaliyadda amniga gobolada qaarkood u kala dhiibtay oo asaga toos ooga amar qaata qolada marka waxa lagu bedeshay dadkii madaxda hore ah aasaasiyaasha ah oo ay kamid yihiin ragga la laayay lagu laayay Ibrahim Afqaan iyo lagu laayay Baraawe wadaadkan Abu Mansuur oo hadda dawladda u xiran iyo u kamid yahay kuwa kale toha Sheekh Muxtar Abu Mansuur kuwa kale to hadda ayaga ku dhex jiro oo buul ahaan waxba haynin oo Sheekh Fuaad ay kamid yihiin markii dadkii odayaashii hore ee aasaasiyaasha ahaa ee shacabkuna u istaagayeen oo la yaqaanay ee taageerada haystay meesha laga saaray oo dadkan la soo saaray ayagiina waxa laga sii hadana samaystay kuwa kale ka sii hooseeya oo ka sokeeyo oo amiirka uga soo sokeeya oo hadda kuwa hadda shaqada ku jiro shaqeynay qaarkoodna la laayay oo qoladii fursaanul khilaafada ahaayee odayaashan lagu riixay ayaga nafirkooda la riixay kadib taladii oo dhan kaligiisii ay gacanta ugu soo ururtay kadib markuu waxay noqotay wuxuu rabo inuu sameeyo wixiina يعني la xisaabtantana aysan jirin ila markii daman odayaashiiba uu ka takhaluso meesha ka saaray hada mar hadii duqeydii la laayay dadkii intoodii kaleeto way iska hoggaansameen wixii la qaban kareen waa la qabto waa kuwa la laayay oo iyo kuwa xirxiran iyo kuwa cararay ay dadkii noqdeen dhalinyaradu kolley horta waa sax waxa laga yaabaa fariintuna inay gaarto hadii waxaan ay wax khayr ah yihiin ama sidii la filayay wali ay ku taagan yihiin dadkii aasaasay lama laayeen qaarkoodna kama carareen qaarkoodna maanta xabsiyo ugu ma jireen in wixii hore aysan ahayn wadadiina laga leexday oo qardajeex la marayo dadka qardajeexa iyo khaladaadka diimeed looga faa'iideysanay ee xaabada laga dhigaynay ayagu ay yihiin horta inay dareemaan waa iga fariin inay codkaygana yaqaanaan muuqaygana ay yaqaanaan markaan ahaana waxaan aaminsanaa iyo sidaan u hadli jiray ay yaqaanaan hadda ka hor baan dhihi jiray anigu markii horena la ima duufsan mar dambana aan ka imidna la ima duufsan kaskay baan markii horena ku tagay aan ku galay markii dambana kaskaygii iyo ogaalkeeyay inay meeshii ahayn waxayna sidii hore ahayn waxa Ilaahay raali ka yahay aysan ahayn markaan aamino iga dhaadhacday yaan oga baxay sababta su'aalo fara badan oo jawaab u waayay badan baan arkay hadaad toos aad wax u weydiisana aad naftaada ay khatar ku galayso marka waxaan dhihi lahaa inay ka faa'iideystaan jaanisyada Ilaahayna ay si diinta Ilaahay lagu sheegay ay ku caabudaan laana Ilaahay waxaan Ilaahay jidayna lagu ma caabudi karo oo al-caabudku cid looga dayanayo waa nabiga kaleey salaatu wassalaam marka diinteena islaamku meel qof muslima lagu dilo oo inuu dad dilayna aan loo dilaynin ama zaano muhsin u yahay aan loo dilaynin wixii shariicadu dilka ku banaysay aan ahayn lagu dilayo la iska qarxinayo waxa loo qarxinayna aan la ogeyn hantidiisa la baabi'inayo meel ay kaga taala hatta haday madaxdu weydiiyaan ana aakhira la weydiinay adiga samee waxaan ka ahayno jawaaba uma heli karaan waxaan dhihi lahaa inay ka faa'iideystaan jaanisyada taagan intay waqti tahay hadda qofku intuu nool yahay buu toobad keeni karaa Ilaahayna u toobad keenaan dhiigaan waxaan ay faraha kula jiraan oo xaaraanta ah ay faraha kala baxaan Ilaahayna ummadan afis weydiistaan Ilaahayna afis ay weydiistaan taas way jirtaa waana percentage aad u badan haddaan hadda dhihi lahaa soo baxana waxa laga yaabaa in naftarkay meelan geeyo inaan waayo sababtoo ah halkaan ay imaanayaan waa lagu taarget garaysanaya dadkuna ma yara waa boqolaal
kala xirfada ah qaar baa macallimiin dugsiga quraan noqon lahaa qaar baa ganacsi iyo xirfadiisa yaqaan furan lahaa qaar baa macallimiin iskool iyo jaamacad noqon lahaa sida bulshada caadiga ay u nooshahay inay u noolaadaan bay rabaan haday meesha ka yimaadaan bulshada intay dhex galaan caadi uma noolaan karaan oo waa la beegsanaya kama hadlayo dhalinyarada yar yarka iyo dadka haday joogaan aan aad loo tabaynin yani markii muhiimad iyo shaqo marka taalo loo dirsanayo lagu adeegto haday maqan yihiin aan aad loo tabaynin bedelkiisa durba la heli karo kuwaas kama hadlayo laakiin dadka dhexe ee joogitaankooda meeshana jiritaankii ururka iyo systemkiisi uu ku bilan yahay haday ka baxaanna boss banayn kara oo meeshay ka baxeen la tabayo waa dadkan ka hadlay waa noocaas iska jooga maanta ee leh intii faraj uu ka imaanayo isaga noolaada leh marka waxaan dhihi lahaa horta ka hor intaysan dadka imaan dadka talada dalka gacanta ku haya dawladda borsaysan ay u diyaariyaan oo dadka bulshadooda kaga mid noqon karaan naftooda ku badbaadi karto intaas qof baan garanaya la dilay oo waxa kamid ah yar lagu dilay Kismaayo markii uu waayay wax ilaaliye iyo wax danaya macallin dugsi buu noqday macad buu macallinka ah caruur yarar wax u dhigay isagoo masaajidka ka soo baxay ba inta wadada loo galay lagu dilay markaas ay website-koodii ku qoran idaacadoodii CIA wuxuu u shaqeynayay sirdoonka Jubbaland xalaga yaabaa miskiin biilkiisa raadsanayay buu ah oo macahad caruur wax u dhigayo mushaar kaga qaatay inuu reerkiisa ku biisho u ribay dadkan sheegayna waa dad levelkaasi iyo level ka koreeya haddaan loo helin marka dadkaasi nolol iyo meel amnigooda ay ka helaan xataa han noqoto inta lacag la siiyo la yiraahdo iska tahriiba bada xataa deyrabana ku dhintaan meel un gacanta shabaab ay kaga badbaadaan ay kaga fogaadaan waa inay helaan haddaynan inta heli karin laguma dhiiran karo lama dhigi karo soo baxa horta dawladdu waxay u baahan tahay waxa maanta socda faham inay horta faham ka hesho markii waxa cudurka markii la fahmo daawadiisa la heli kara dadka naftirkooda waxa laga yaabaa inaan isku mustawa ahayn isku halis ku jirin markii la soo dhaweynayo isku si aan loo soo dhaweynino soo dhaweyntooda aysan isku mid noqon karin ay kala culus yihiin hadhow amba bixintooda ay kala fududahay waxa soo dhan markii la fahmo loona soo jeesto yaan dhihi lahaa wax badan baa laga qaban lahaa marka waxaan dhihi lahaa uma soo jeedaane inay u soo jeestaan haday u soo jeesteenna wadadii u soo jeesashada ay xalka noqon lahayd inay raadiyaan oo wadada maanta ay waxaan inay ku daaweeyaan ay rabaan wadooyin kale tiro badan oo ka fudud kala jire inay raadiyaan kadibna dadku waa dadkoodii kookab kale lama geyn karo waa Soomaali halkaan ay rabaan inay ku noolaadaan laakiin waayaha iyo waqtiga iyo afkaarta meesha la tagay daaweynteedina dadka meeshaan asal ku ah ama systemkii iyo dawladii gacanta ku hay ayaga laga rabaa waa inay marka fakaraan ama dad aqoon u leh waxaan yaqaano raadiyaan oo khubara la tashtaan talooyinkaasina ay wax ku dhistaan oo daawadiina ay ku raadiyaan laga yaabo inta maanta naf iyo maal iyo dhiig askar ku dhimanaysa ka yar inay ku bixi lahayd shabaab waxaynan ayaga ahayn cadow buu yahay waxaan ayaga afraadooda kuwa fulinay waxaan ahayn cadow buu yahay waxaad ku dareemaysaa haddii kii ka soo baxayna cadow u yahay kan ka soo horjeedana cadow u yahay islaanta shaax karinaysa cadow u tahay ardayga buugiisa wata jaamacad u socdo iska dilayaan dama cadow aan xadidi karno hebel aan dhihi karno ma jiro hatta ku ayaga naftirkoodii ba isdilaya marka waxa waaye meel aan ku tilmaano ma jirto maanta marka qof kasto oo iyaga ka tirsanay aslan dadka shacabka Soomaaliyeed waa laba mid horta kulligoodii dil bay ku xukumayeen laakiin laba dariiq bay ugu xukumayeen imma maqsuud qofka lidaati shakhsiyadiisa buu target u yahay wa imma dadka loo target ku yahay labada mid dadka loo socdo dhex jooga ama isaga lafihiisa target ah waa markasto jaanis laga helo in la dilo halis u yahay ama isaga laga yaabo inaan laakiin kaas uun la arkayo mid kaleeto diinta islaamku xala alwasaa'ilu laha ahkaamul maqasid wasiilada iyo wadada loo marayo hadafka
kolba hadafka xukunka uu qaatay wasiiraduna qaadata haddii shaygan hadafka waajib yahay wasiirada loo maray waajib waa inay waajibta haddii shaygu xalaal yahay wasiilada loo maray waa inay xalaal noqoto xaaraan looma mari karo xaaraan wasiilada loo marana xaaraan leh waayadan waxay ku leeyihiin shakhsi baa la rabaa in la dilo shakhsiga dilkiisii waxa ka sokayso 100 nin kale dhimashadoodii ma arkaan 100 kale قاعدة بركو حاجرتو لدهو ميكافيلي قاعدة ميكافيلية الغاية تبرر الوسيلة هدفك يا وحكو يعني كو سمينا يا وسيلة عدو مريسو وحبنا جمع جلين بقول كديمان يسو وينو كادنتا شخصي كان بقول كان كلا الله مرة ديمانيس وحبنا جمع جلين وينو كاس دينتا سيدا دراديد بعد أركي سمرك كاركوت دالن يرادا ميلها كار حسا حتى سيجار بالو ديبا جلين وسميان واي شيخ هدي مكفيلي wax looga dayanayo islaamnimada shabaab xaqii ku saleysan hada islaam tahay ma anaga ka iimaan lahayn musuumad badan waxaan u gali lahayn meesha islaamnimo u helin be dad badan baa laga yaabaa inay islaamnimo u haystaan looma kitaab dayo hadda waxa socota iyo ashxaas baa wada والله شعبك الصومالية وحن لها ورت إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا إنه إلهي علاسك كقاضو أبارها يدباتوين كمان تجرا إنه إلهي سبحانه وتعالى كقاضو قلوب توضنا إلهي اسكو صوت دمو دادات كان ميل والله إنه يو هديتها صوت أفريقيا هديتها يوروب مريكان كلا فرحة وضيعان وعدو كستمان وضيعان لب كست وضيعان هنتي ضودي يوحول بقى كلية وحي أي كجبت بعد كارن إلهي نقول لابتان مذوبان كعمها إسقبصتان هل جها كسوة جيستان نبى يودي ما نريد الشعب كان هذه لا إسكالينا يو ما كعام بيقولوا ده إسكاليان مركا حنقو عبر الشعب كوا بابور أندرا والله لكن أنا وحبك هلا سنين وشذا الكيس وحس كل كتير لكن درا والمره حرام أن نقف فرها كرجة دقاجية تصالح كسينا أنت سميدوغا محكمadaha bilaaban dadku reer muqdisho dib badan baa lagu hayay meedkoodii la iibsanay dadka nool ma ahta qofka isagoo nool la afduubto ya madax furasho laga qaadan jiray haduu dhintana meedkiisa la iibsan jiray dibkaas waxa ku dhacay shacabka ay ahaayeen sidaas bay u joogeen u tira badnaayeen awooddoodana ay u keedsanayd midowga maxkamadihii baa yimid markii shacabka loo fiirsho midowga maxkamadaha برسنتج أدو يربي كاهاي 0.0001 حتى ما دمين لكن دوينها أنت سكال الله فيش لكن فوره يكون رجال ويهور كعان أود ذي شعب أود يكون جرتي يتوسان كدي بمدوجة محكمة هو جامع كواحد هذا مجال هذا شعب باك حري علم هذا مدوجة محكمة ودي وان قشنا مشاركة تاسك وقادنا إنك مشاركة سينا هذا كوران أركب غير صدقكم كم بدنا لكن عيدا كدجال هذا قال أنت سكون أو بيعها سمة تطوعني ما أجري مركز الشعب كوحيران وحركعة وحنا وعدية جهينا كدي مركز هريدا إيه أسكتوري لها هدايسن هيسانين وحالة يابا ونف وين هدا أنت نلقعونه ميل والبنا نلقعونه يا لكن هذا وحيرة هلا دربو دمالنا موقتان دمانين لكن حسوقه كسعده marka dadka la rabo inay furaha ku rogaan waa dadka maamulka haya iyo culimada hadaynan ayagu istiraatiijiyad iyo aynan keenin dadkan lagu badbaadiyo hada saan baa lagu sii jiray marka mas'uuliyad ugu horeysa ayaga ma fuulaysa waxay saaran tahay maamulka iyo culimada waqtiga in haddii 5 sano ka hor maanta aad ku maalgashan lahayd kaliya $3,000 magaalada casriga ah ee Konza aad haysan lahayd maanta in ka badan $8,000 wow وكرر كبدن بقول كيف لا بقول هذا بتكتر دايت ما تقبل وكفاية فرصة دنو قارك أهمل قبلنا مستقبل كدو ينكو هاينو شركة داشكو وصورة قليها رياضة فافعين رادة فالله نقل سحر المرة شاشتك كمقدار